Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran. bismillaahir rahmaanir rahiim waxa weeye waxaanu yeelanay kulan ku saabsan gardafuul xaaladiisa oo 15 bisha laga bilaabo ilaa iyo hadda roobab ka socdaan roobabkaas oo runtii si fiican uga daay hase ahaatee geystay wadooyinkii dhibaato u geystay maartay wadooyinkaas oo meelo badan laakiin waxa haddan ugu waaweyn oo dhibta ugu weyn waxay tahay wadada la yiraahdo lafa goray oo gardafuul xiriirisa oo maartay baargaal iyo u dhaxaysa calula ayaa maartay roobabkii gooyeen oo runtii wado muhiim ahayd ilaa iyo haddana waa kala xiran yahay gobolkii oo wax u kala gudbay ma jirto arrintaas ayay ku saabsan tahay shirka jaraa'id aan qabanay oo hadda muddo 10 beri xiran lagana yaabo inay sii xiraato haddaan si degdeg wax looga qabo waa gartay mudane maanta kulan degdeg ah ayaad yeelateen yaa kugu heliya kulanka ka dhacay magaalada Boosaaso kulanka waxay ugu heliyaa gudoomiyihii hore oo xilka dasiihaya gobolka Gardafuul gudoomiyaha cusub ee gobolka Gardafuul oo aan xilka rabay inuu la wareego oo haddana ku xayiran meesha iyo madax badan oo dhaqameed iyo waxa uu heliyay iyo qodob badan hay'ada ah iyo mas'uuliyiin badan ayaa fadhiday oo shirkan ka soo qayb gashay marka qodobada ugu muhiimsan ee aad uga hadasheen shirka maxaa kamid ah waxaa kamid ah in meeshaas loo gurmado oo sidii dadka shacabkaas dhibaatada u gaadhay oo wadooyin ka xiran yihiin oo ay keeni karto daawo la'aan iyo nafaqo la'aan iyo caafimaad xumo ay keeni karto oo maciishadiina ay ka xiran tahay iyagoo awalba ku xiraa maartay dekada weyn ee Boosaaso gaadiidkiina ay hadda ay ka xiran yihiin oo yar mari karin in maartay dawladda iyo hay'adaha samafalka internationalka iyo shacabka Puntland ganacsatada jaariyadaha inay maartay arrinta isu taagaan oo siday wax uga qaban jireen waxyaalaha soo kordhay inay wax uga qabtaan arrimahaas ayay ku saabsanaa shir jaraa'idkan qabanay mudane wasiir markii laga reebo kulankan degdega ah ee maanta ay qabateen ma jirtaa wax tallaabo ilaa haatan la qaaday ku aadan sidii loo furi lahaa wadooyinka xiran tallaabada hadda ugu horreysa aan la qaaday waxa weeye in aan meeshii maadaaba aan baabuur tegi karin muddo 10 beri dhalinyaro rag loo diray oo lasoo sawiray oo lasoo arkay dhibta meesha ka jirta tallaabada ugu fiican oo hadda la qaaday waxa weeye meeshii waxa la soo xaqiijiyay oo laga soo qaaday sawirro iyo muuqaalo laga soo qaaday arrintaas ugu muhiimsan hadda laakiin waxa hadda tallaabo ah oo la qaaday oo farsamo ah ma jirto marka qiimeyntaasi aad ku soo samayseen deegaanada ay wadooyinku ka xiran yihiin ama meelaha ay wadooyinku ka xirmeen maxaa xigi doona waxaan u bandhigaynaa sida aanu hadda maanta u sheegnay inaanu bulshada u bandhigno iyo dawladaba gaarsiino maaragtay iyo hay-adahaba oo aanu ka codsano in maaragtay arrintaas wadajir si midaysan shacabkaas Puntland ee halkaas in maaragtay loo gurmado oo maaragtay wadadii loo furo oo wixii ma dhibaan baa la yiri maaragtay hawshaas gacmo wadajir wax looga qabto Puntland Post. warar sugan iyo warbixino dheelitiran.